hawlaha arlada hadii lagugu aamino ummadda uu sabeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysi ehela sheego ay furan idinkuma arkaysi ila adeerko ay furan idinkuma arkaysi ila adeerko min xilqaaday eed qadiibo min xilqaaday eed qadiibo gabadh baan ahay hanti kaliyan ku lahaa Muqdisho hantideedii waa la iga haystaa qayb laga dhistay noqotay waxaan marka halkan magan u ahay Ilaahay ka soko ummadda Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maadaama gurigeyga uu ku haysto nin madaxda heerka ugu sareeya ka jooga oo meel muhiim ah haysta oo dhulkayga haysto shaati dawladeedna uu adeegsanayo oo iska celin waaye shilinkayga meesha aan san ugu waday qarash badan galay waxaan doonayaa in waxaygi si sharaf leh iyadoo la adeegsanayn shaad dawladeed iyo power abuse la igu sameynaynin waxaan doonayaa waxaygi in la siiyo gabadh Soomaaliyeed baan u cabanaysa magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Nuur Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi Warsame waxaan walaashay Ifraax Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi Warsame waxay guri ku leedahay magaalada Muqdisho gurigaas oo ka horjeeda madaarka ama garoonka diyaaradaha aadan cadde wuxuuna ku dhagan yahay warshada caanka ah ee isbuunyada meesha ku taala gurigaas waxa uu dhisay ninkii guursaday oo nin wadanka Italy u dhashay ama Talyaaniga oo muslima ninkaas gabadha walaashay aniga ayaa siiyay aniga ayaa u guuriyay aniga ayaana markaa u nikaaxay oo walaashay ninkaas siiyay walaashay Ifraax Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi Warsame waxay u dhashay labada wiil agtayda fadhiya wiilkeeda curadka waxa la yiraahdaa Liibaan wiilka kan waxa la yiraahdaa Kayse labada wiil ayay u dhashay. Salve, mi chiamo Liban Bellezza. Siamo i figli, il primo figlio, il secondo figlio di Abdirahman Sheikh Abdullahi. Mio padre, prima dell'inizio della guerra civile in Somalia, comprò una casa per mia madre e quella casa era ancora in fase di costruzione all'inizio della guerra civile. Purtroppo oggi la casa è sotto controllo di qualcun altro, non della nostra famiglia, e vorremmo invocare l'aiuto del governo somalo per riprendere il controllo di questa casa. Grazie. Assalamu alaikum, my name is Liban Bellezza and this is my brother. We're the first and second sons of Ifrah Abdirahman Sheikh Abdullahi. Before the civil war began in Somalia, my father bought a house for my mom, and the house was still in construction at the beginning of the war. Today, unfortunately, the house is under control of someone else, not a family member, and we're invoking the help of the Somalian government to take back the control of the house. Thank you. dhulkii ay gabadha walaasha iska lahayd dadaal kastoo aan sameynay oo maxkamaddii gobolka Banaadir aynu marnay booliska Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya xafiisyadeeda kala duwan iyo meel kasta oo sharci ah oo aan marnayba ilaa ay hadda dhulkay gabadha walaashay si gardarro ah oo dulmi ah oo xaq darro ah
ayaa looga haystaa waxaana haysta nin ka mid a madaxda soomaaliyeed oo la yidhaahdo gaafow ninkaas waxaan u sheegayaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka baqo adduunyadani waa maalmo yar oo kooban waa laga tegayaa dulmigana waxa weeyaan waa shay aan ilaahay ogolayn subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta inay isdulmiyaan waa shay xaaraama maanaan ogin inuu dagaal dhacayo inuu saa u daba dheeraanayna cid ku tashatay ma jirin dagaalka Soomaaliya ka dhacayo aan aad uga xumahay waxa weeyaan dagaalkaasi markuu dhacay waan soo qaxnay waxaan la qaxay ninkii guursada Talyaaniga ahaa waxaan tagnay Talyaaniga muddo dheer baan ku maqnayn dagaaladii markay aan sinir way dhamaadeen waxay ahaayeen 2012 ayaan nimid markaan sinir dawladii ku meel gaarka way ka bixirtaa way ka baxday dawlad adag weeyaan ayaan nimid oon xuquuqdeena soo doonanay gurigii ayaan sinir taga markii ugu horreysay tagnay meesha waa nalagu soo weeraray qoryo ayaa dhunta nalaga saaray waxaan u tagnay guriga oo xero qaxooti ah oo dad aan la geli karin oo iridkiiba iska xiran meel qaxooti degan yihiin waxaan nidhi haddii laydinku arko agtiisa waa laydin dilayaa waan iskaga tagnay waxaan raadsanay inaan dacwoono oo anagoo aaminsan weli xuquuqda in dawladdu ay noo heelin doonto dawladdu waan hoos galay aanu dacwoonay dawladdu si fiican bay yeeshay gobolka Banaadir waxaana uu noo soo xukumay uu soo raadiyay uu noo yimid meeshii uu yimid guriga uu yimid way cadeeyeen way proof-gareysteen maxkamadii way qortay wax walba la sameeyay maxkamadii booliiska waxay qortay fulin bay qortay fulinta guriga ka saarid waan ku dhibaatoonay aad baan ugu rafaadnay waxaa markaa haystay guriga 3 qaybood baa loo qaybsaday however qaybta hore ee wadada xigta waxa weeyaan oo wajiga guriga ahayd laba dabaq oo isku garab yaala ayaa laga dhistay midna General Gafo baa dhistay midna wuxuu yiri wakiil baan ka ahay qaybta guriga qaybtiisa dambana waxa laga dhigay sakin bay gashay ama qaybta labaad baa laga dhigay waxaana haystay gaashaanle sare Xuseen Cabdullaahi Waran oo ah nin Gafo ilmaadeer yihiin ama isku beel yihiin ka soo wada jeedaan beesha murursade gaar ahaan isla siihiin habar ahayno ninkaas oo aragno inuu asagu meesha dhigtay sababtana waxa weeye hal sano markii qaybtii dambe aanu Cabdullaahi Xuseen Waran kula dagaalameynay oo isdacweynaynay oo maalin walba ciidan la iska horkeenayay oo arkay inuu dacwadayada iyo kartidayada iyo ciidamadan wadano iyo ummadda Soomaaliyeed noo soo gurmatay uusan celin karin oo khatar ku galayo Cabdullaahi Xuseen Waran 27 bishii May 2013 ama 2013 ayaa 27 May waxa soo wacay taliyaha booliska Nuur Boolis ee degmada Madiino oo yiri Cabdi Xasanow gurigii waan haynaa amarkii fulinta oo booliska fulinaya waan tagay gurigii markaan tagay ee la rabay in lagu wareejiyo waxa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee militariga nagu soo weeraray gaashaanle sare Cabdullaahi Xuseen Waran oo ka tirsan gaaska koobaad guutada labaad ururka koobaad sidan loogu sheegay anigu ciidamada sida uma kala aqoon laakiin waxay soo baray duruufta guriga kan marka maalinka Cabdullaahi Xuseen Waran wuxuu rabay inuu idilo guri baa lagu soo xiray Nuur Boolis oo nafteeda badbaadiyay halkan waa uga mahadcelinayaa Nuur Boolis oo ah taliyaha booliska degmada Madiino Cabdullaahi Xuseen Waran gurigii wuu fiiqday albaabadii buu kala baxay daaqadii buu kala baxay laamiyadii buu kala baxay markii intaas ay dhacday ayuu isoo wacay asagoo ilaa gurigaagi waa kaaga baxay lacag baan u baahanahay anoo moodaya in gurigu uu sidii u nabad qabo oo uu ka tagay oo nin xogaagiisa raba anna diyaar baan u ahaa taas oo ayadoo duuban aan idin hayo ummadda Soomaaliyeed sida ila aragtaan walaalayaal markii intaas ay dhacday anu qalabkii dhismaha iska soo gatay waxa weeyaan guriga baan dhismaha ku bilaabay kadibna waxa dhacay General Gafo ayaa ciidankii migrationka Soomaaliyeed gurigii oo shamiitadii la qasayo nagu wareejiyo isku weer nooga qabtay maalinkaas waxa maalin Khamiis ah waxa weeyaan dhismihii sidii buu ku joogsaday ummadda Soomaaliyeed ama dariska ahayd ama beelihiina yaqaanay reer Muqdisho ahaa ayaa arrinkii ka xumaaday ii soo heeliyay noo soo gurmaday ciidan baa naloo keenay waxa la yiri Cabdi Xasanow maanta waa Khamiis saasaa kugu dhacday waan aragnaa
dulankii intaas socday korneylkii markii guriga uu ka baxay in adeerkiis uu yiri war adigu gaashaanla saraad tahay oo tabar milihide anaa generaal ah oo tusaya dadkan oo quusinaya waxa weyn xagga ii fariiso marka waxay arrinkii noqotay arrin la yaaba waxa weyn General Gafow oo guriga ku qabsaday kii u dhisnaa maaha kii labaad ku qabsaday maxaan ku raahdaa ciidankii migratiga dowladda Soomaaliyeed okay ummadii Soomaaliyeed waxay yiraahdeen way ka xumaadeen waxay yiraahdeen berri waa jamce fasax baa lagu jiraa laakiin subax sabtida waxaan ku ballan qaadaynaa Cabdi Xasanow gurigii in aanu ciidan hadii lagu faanay annagoo Soomaali ah aanu ku heelino subaxii sabtida General Gafow asagoo isle khamiistii wiilashii meesha aad u tagtay guriga dhisayay aad soo xirxirtid oo ciidanka migratiga wata ya annagoo ummadii Soomaaliyeed ay noo soo heelisay ayaa subaxii sabtida ahaa meesha isugu yimid laba ciidan oo hubaysan ayaa halka qoryaha isku qabtay arrinkii markaa wuxuu noqday in la waco taliska booliska halkaas oo gurmad ku yimid ku-xigeenka General Saacid oo ah ninkaas sida xaqiiqdiisa magaciisi hadda dusha kama xafidsani laakiin ku-xigeenka General Saacid oo booliska iyo General Malin oo ahaa amniga gobolka Banaadir ninkii haystay labada nin baa ciidankii kala kaxeeyay oo arrin markhaati leh subaxaasna General Gafow wuxuu sheeganayay gurigii korneelka halka sana aan kula dagaalameynay asagoo sheeganaya oo leh aniga iska leh waxyaabaha la yaabka oo aanu dhinacan u qaadna la'anahay mar labaad adu markiina la dhexdhexaadiyay oo rag uu kamid yahay General Bariise oo arrintii soo galay oo uu yiri annaga maxaan ku raahdaa Cabdi Xasan oo arrintii ku dhameynayna si waana annagu halkaas dacwadii wuxuu ku joojinay asagoo ujeedadu ay ahayd nala yiri ninkan maadaama intaas dab uu ka dhistay waxaanu doonaynaa Cabdi Xasanow inuu gurigii iibsado oo dhulkii dambe iyo kii horeba la idinka iibiyo sidaasana lagu dajiyay ama maxaan ku raahdaa lagu sameeyay khiyaamo noocaas sida dacwadii hore u sii socon oo aniga maadaama sida la igu yiri Gafow wuxuu yiri South African tagaya South Africa inta ka soo noqonayo wiilku ha isugo waan ka soo tagay London baan imid kadib waxay noqotay in la yiraahdo soo bax waxa weeyaan annagoo qorshaha iyagu ahaa ninka odaga ah inaan waxba isii jiidan oo aanu doonaynay dhulka dhanba inaan ku wareejino laakiin nasiib darro mar labaadkii aan halkan ka laabtay waxa weeyaan Gafow uu diiday inuu naqaabilo General Bariise intaas oo waxaan ka hayaa cadeymood oo taxi message-yada isdhaafsanaynay iyo waraysiga isdhaafsanaynay ayaan idin hayaa oo uu leeyahay balantii waan ku maqanahay Cabdi Xasanow naga raalahow Gafow uu imaanaya markuu yimaado arrintan si degdeg ah u kala tuurayna nasiib darro waxa halka nooga cadaatay waqtiga in laga luminayo markii aan arrinta quus ka joogsaday ayaa ummadii ila yaaban oo ayaa go'aan waxaan qaatay ah in Gafow xafiiskiisa ugu tago General Gafow xafiiskiisa ugu tagay anigoo leh Cabdi Xasan baan ahay dadkii guriga ka haysata baan ahay General Gafow waxa weyn intaas aan ku sugaynay waa maxay sida tan waxaad nagu dhaqmayso ballan buu ii sameeyay ballantii waan tagay aniga oo xildhibaanadeedii ila socdaan ayaan xafiiskiisa ugu tagay marka gurigii uu nagu yiri dabin baan ka ahay laba dabaq ahaa ninkii iska lahaa ayuu wuxuu yiri Nairobi uu jiraa marka ninka magaciisa waxa ma rabo inaan inta ka sheego maadaama aan u arkay markii aan la sheekaystay nin wax diidan inuusan ahayn isla markaa ceebta tan uu shaqo ku lahayn badda tan la geliyay waxa weeyaan dad naxariis badan baan noo mar rabnaa ninkaas magaciisa in aan wasaqeynaa wax soo gaaraan maadaama Gafow nagu yiri ana mas'uul ka ah arrinkan waa arrin Gafow ku eg oo waxa nooca laba dabaq inuu asagu dhistay laba dabaq uu mas'uul ka yahay gurigii korneelka aan ka saarana uu dib u sii qabsaday waxyaabaha xaqiijinaya gurigii inuu dib u sii qabsadana waxa kamid ah guriga dhismihii ka hor istaagay qalbkii dhismaha ilaa hadda uu muqdisho yaalo annagoo cadaynayna oo halka ku cadaynayo markii korneelka guriga uu fiiqday warqadii canshuurta aan ku bixiyay ee Madiina dib aan u soo sameeyay oo guriga aan rabay inaan ku dayactiro oo la isoo ogolaaday anoo sharciga qadarinaya wataas markii inta laga soo tago halka waxaan idinku hayaa xukunkii maxkamadda gobolka Banaadir ay riday waa kaas waxa weeyaan waxa kale halka idinku cadaynaya ummadda Soomaaliyeed fulintii booliska oo amarka uu ku bixinayo guriga in la qabto wataas fulintii labaad wataas fulintii saddexaad wataas waa guriga kaliya ee saddex fulin ee amar ee boolis waxa weeyaan maanta la weeyay taasoo ceeb ku ah sidaan aragno dawladda Soomaaliyeed waxa kale halkaan idinku cadaynaya idinku haya taliska booliska degmada Madiino oo gurigii qabtay oo Nuur Boolis uu leeyahay gurigii ugu wareejiyay iyo
ninkii cadaymihii booliska ay ka markhaati furayeen inuu gurigii fiiqday oo laga qoray weeye gaashaanla sare cabdullaahi xuseen waran warqadaasuna wataas hadda mas-uulka ka ah ummadda Soomaaliyeed isla markaa dadka masaakiinta ah codka lahayn ama tabarta lahayn sida ay ugu tuntaan ayaga oo ku baabiinaya shaarka dawladda waana nin generaal oo waxa weeyaan dawladda matalaya marka anaga waxaan la dagaalamaya ama guriyaha iyaga haysta maaha shakhsi maaha qof caadi ah waa qayb dawladii kamida halkaas aad baan ugu adkaynaynaa waa qayb dawladda awoodaha ugu sareeya huwanaysa halkan waxaan rabaa inaan ammaan uga soo jeediyo gobolka Banaadir oo aad noo sharfay oo 3 goor ciidankooda iyo ayaguba ay yimaadeen gurigaas oo ay arkeen oo dariska markay soo wareysteen arrinkaas oo maqal iyo muuqaal iyadoo aanu hayno ayagoo cadeynaya gurigaas inay gabadhaas leedahay xoogna lagu haysto arrinkaasna haddii loo baahdo waanu soo cadeyn doonaa arrinkaas qasaro weyn lagu geystay 2 sano ayaa arrinkaas wuxuu nagu qaatay qarash iyo iska daba wareeg iyo hor u sii soco iyo gadaal u sii soco oo nagu noqday arrin aan dhamaanaynin marka inta samaha jecel gabdhaha Soomaaliyeed waxa weeyaan iyo culimada Soomaaliyeed iyo inta cadaaladda jecel waxaan ka codsanaynaa arrinka inay soo farageliyaan oo ka dhiidhiyaan isla markaa ummadda muslimka ee afka Soomaaliga ku hadasha meel kasta joogto waxaan ka codsanaynaa in arrinka tala iyo tusaale aqoontiina iyo aqligiina waan u baahanahay naga caawisaan gurigayga waxa lagu haystaa waxa aan garan waayay gurigayga waxa lagu haystaa xoog gurigayga waxa loo haystaa nin Talyaaniga iska leh gaal gurigii weeyaan ayaa 3 qaybood loo kala qaybsaday here you're wrong you're very very wrong waxaan idin sheegay inaad khaldantihiin waayo wax weeyaan guriga ninkaas horta hadda idinku gaal ku sheegtaan idinkii ilaahayna laakiin labadan wiil ayuu dhalay guriga anaa leh wiilashanuna dhalay kulli family ahaan baan u dagaalameynaa tan waa faceki koowaad haddii aanu dawladda Soomaaliyeed is afgaran weyno arrimayga la ii hagaajin waayo waxa weeyaan anu ilaa heeg baan tagnaa as a family iyo dad badan oo kale ugu soo daba fayli doona marka dawladda Soomaaliyeed waxay ku qurux badnaan lahayd gabadh cabanaysa cabashadeeda inay consideration weyn siiyaan dadka maaragtay masaakiinta aan la dhicin oo loo adeegsan hub ciidan waayo waxaan lagu soo weeraray waa ciidankii immigrationka ayaa gurigii qabsaday maalinkii la yiraahdo waa la idin siiyay gurigii ciidanka immigrationka lagu soo wareejiyay gabadhan sida walaalkeed uu idin sheegay ayaduna idin sheegtay halka guri ayay ku leedahay magaalada Muqdisho ayadoo gabar yar ayay eerida jeclaatay dad kale hadii uu jeclaaday ayada ka hor jeclaatay oo lacagteeda kala baxday oo xuquuqdeeda qof kasta oo isku daya inuu qori caaradii ku qaato aanu leenahay dawladda Yurubiana oo xuquuqdeeda difaacaya anagoo qori wadanin oo qalin iyo afka iyaga iyo sharciga ku dagaalamaya sababtoo ah qori sida loogu dagaalamo ma aanu baran waxaanu nahay dad qurbaha ku raagay lana qabsaday xuquuqda qof walba uu leeyahay haddii lagu la murmo inuu ku raadsado qalin iyo afkiisa waa nin dhiga adag on doonayn in la dhilgaray xishood way ka tagtay wiilasha masaakiinta haddii aad rabto inaad dhacdo xoolooda saa kuma dhacaysid waa sheegaya gurigaan meesha ka taagan laalaab iyo nuunu iyo ma jirto wax la dhacayo wax la hada ma naqaano gurigeeniyaan rabnaa 40 lagu dhuftay konton that's it haddayna ahayn waan dacwoonayna powerkaga dad ku abuse garaysaa markaad adu abuse ka joojisid ee gabdhaha Soomaaliyeed waxooda hantidooda dhacaysa ee abuse garaynayso dadka marka baasaboorada u sameeyo waxa tiraahdaa baasaboorka qofku inuu dalka iyo dawladda dambi ka gali adigu shaarkeed xiran tahay anu ma garan karo madaxweyne ra'iisul wasaare gudoomiyaha baarlamaanka idinkan magan idin ahay haday sidaa tahay Soomaalinimadu haday sidaa tahay wadannimadu waxa weeyaan waa ilaahay amarki weeyaan haddaba waxaan weydiinaya anu miyaan shacab Soomaaliyeed ka soo jeedin miyaanan xamar ku dhalanin oo xamar jajabaan ku dhashay madiinaan ku koray waxa ay yaqaan dadka sida xildhibaanada Umar Finish oo kale walaalahay uu yaqaana reerkaygu uu yaqaana waxaan madiinaan ku koray dugsiga hoose jaalisiyadan ka baxay ee Shaleemo wadajir ka soo horjeeday waxaan ka baxay on dhigtay hadana secondary-ga ku dhawaa ee wadajir sare sanadku dambeena baarbaan ka baxay isma aan lahayn wax kale oo aslaha isma aan lahayn laakiin guri aad ku leedahay Madiino waliba meesha aad ku kortay ee asxaabtaadu dhan joogtay ayaa maanta guri lagaaga haysan karaa ma aan soo dhiganinta way sadacday oo sidii gabadha walaashay xuquuqdeedii iyo hantideedii oo sharciyadeedii iyo sabar loogadii wax walbaba ay haysato
gurigii ay maxkamadii ay gobolka banaadir ay u saxiixday oo dowladdii ay u fasaxday in weli ninkaa uu gurigiisii haysto waa wax aan mataqaanaa aan marnaba aanan aqbali karaynin madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waxa aan ka codsanaynaa inuu awooddiisa madaxweynenimo isticmaalo oo dadka cadaalad u sameeyo oo isaga ayaan u dhawaaqaynaa maanta inuu hantida gabadha walaashay laga haysto inuu markaa usoo celiyo iyo ra-iisul wasaaraha cusub ee hadda la doortay mudane cabdiweli sheekh maxamed isagana waxaan ka codsanayaa inuu soo farageliyo oo gabadha walaashay dhulkaa iyo guriga iyo hantidaas maguurtada iska leedahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo xalaal u ah oo aan aniga goobjoog ka ahay oo ay walaashay tahay aan isku hooyey isku aabannahay oo da-dii iga yarayd ah in dhulkaas madaxda sharafta ee soomaaliyeed oo raciyadoodii iyo shacabkoodii aan nahay waxaan ka codsanaynaa in ay soo farageliyaan oo dhulkaas ay wiilashan hadda soo koraya hantidoodii iyo hooyadooda hantidood in ay soo farageliyaan prime ministerka iyo madaxweynaha oo iyo guddoomiyaha baarlamaanka dhammaan waxaan ka codsanayaa in ay soo farageliyaan oo ay hantidaas gabadha walaashay ah ay xaqa garab istaagaan oo ay u soo celiyaan hantideedii xaqa waxa weeye lagama leexleexdo marka adeer waxaan leeyahay adduunkan gocad baa laga qaadanaya hanti ku filan ilaahay waa ku siiyey arrinkaa raaligelin ka bixi si lagu cafiyo waxaan halkan codsigayga mar labaad ku soo celinayaa gabdhaha soomaaliyeed oo gabar soomaaliyeed oo la boobayo maanta inta awoodda aad leedihiin in la arkaa loo baahan yahay arrinkan wuxuu ku socdaa inta afka soomaaliga ku hadasha oo ugu horeeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne cabdi maxamuud cumar madaxweyne ismaaciil cumar geelle madaxweyne silaayo madaxweyne cabdiweli iyo inta baarlamaana ee afka soomaaliya ku hadasha ee mas-uula arrinkan ku socda iyo mudane axmed madoobe iyo intaan magacooda ilownay dhammaantiin inaan arrinkan idin soo bandhigno iyo aqoon-yahanka soomaaliyeedow iyo abwaanadow iyo fanaaniintow iyo inta xaqa jecelay waxaan halkan idinkaga caddaynaynaa shaarkii dowladda in ummadda masaakiinta gaar ahaan gabadha soomaaliyeed iyo carruurta abtiga aad u tihiin xaqoodii lagu boobay inaad u istaagtaan taladiina iyo tusaalihiinana waan u baahannahay website baan arrintan u furaynaa telefon baan kusoo qoraynaa inta samaha jecelay taladiina u baahannahay waxa weeyaan halkan waxaan codsi gaara uga fidinayaa oo si khaasa wax u weydiisanayaa culummada soomaaliyeed in alle intaaf soomaali ku hadasha waxaa kaloon codsi weydiisanayaa hooyooyinka ururka hooyooyinka gabdhaha darajooyinka ka haya dalka gabadh dhibaataysan oo soomaaliya oo wiilale habareer u yihiin haysa oo la dhacayo oo xoog waxeeda looga haysto waxaan doonayaa in afka soomaaliga lagu wada hadlayo soomaali baanu wadanahay maanta walaalaanu wadanahay meel kastoo la joogo waan isku soo dhaweynaa waan isku garanaa afka waxaan doonayaa in la ii hiiliya maanta haddaan khaldanayna dee anaaba khaladkayga qaadan inaan khaldanays waan is ogahay oo anigu aan dhacanahay laakiin wixii iga khaldan ee iga gardaran aad iga qabataan walaalayaal gabdho soomaaliyeed haddaad tihiin waxaan codsanayaa in soomaalinimada la ituso bal maanta oo la igu hiiliyo maadaama gabadh soomaaliyeed ahay waddankan wax badan ka maqnayd sugaysan in waddanku hagaago si wixii ay usoo doonato markays tiri wixii way hagaageen way soo dhawaatay nabad baa timidna markay timid hadde meeshii inkaara ka dhaceen marka waxaan idinka baryayaa in aad ii hiilisaan midda kale dhulkan lacag badan baan waagaa ku iibsaday ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo howlaha arlada haddi lagugu
aamino ummadda uu sabeegiyo adeega laga dhigo hay furan idinkuma arkaysi ehela sheego hay furan idinkuma arkaysi ila adeerko hay furan idinkuma arkaysi ila adeerko min xilqaaday eed qadiihoy min xilqaaday eed qadiihoy